Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu baajiyay kulan uu saacad ka hor uu isugu yeeray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee kasoo jeeda beesha Hawiye kaas oo la filayay in uu ka dhaco madaxtooyada Villa Soomaaliya. Xildhibaan Cabdirasaaq Jindi oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xildhibaanada kol sii horeysay fariin loo diray isla markaana uu madaxweynaha ka dalbaday in ay isugu yimaadaan hase yeeshee saacado kadib xildhibaanada lagu wargeliyay inuu kulankaasi baaqday. Waxaan u maleynayaa in madaxweynaha uu ka maarmay xildhibaanada isla markaana arrintii uu ka lahaa uu meel kale ka helay ayuu yiri xildhibaan Cabdirasaaq Jindi. In ka badan 30 maalmood ayuu dalka lahayn wax ra'iisul wasaare ah iyadoo madaxweynaha Soomaaliya laga sugayo magacaabista ra'iisul wasaare cusub oo uu dalka yeesho. Weli ma cadda cidda sida rasmi ah loogu magacaabi doono xilka ra'iisul wasaaraha dalka iyadoo siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin hore dalka uga soo qabtay xilal kala duwan. Mararka qaar la sheegayo in laga yaabo in loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha dalka.